magaalada Boosaaso waxaa la yiri xaafado awood leh loo qaybiyo oo runtii xarumihii dawladda iyo adeegyadii si bulshada ay u gaaraan waa qorshe ay idinku keenteen oo golaha deegaanka ka yimid waxaan rajaynayaa sida inkastoo hadda aad la socotaanoo xoogaa arrintaa uu hadal ka yimid arrintan idinkeedii ka timi qorshaheedana idinkaa keenay idinkaana la rabaa inaad dadka la fariisataan oo saxdaan weliba hadda cabashada ugu badani annaga laftigeeya qolyihii reereeyahayo waa naga hor keenteen oo hadde waxa weye waa la socotaanoo waxaa la rabaa inaad arrinta saxdaanoo cayaarta intaa iska daysaan reereeyahay waa inaad guddoomiyaasha xaafadaha xabad ka siisaan ama qolyaha kale ka qaado oo hadda la sheegayo anugu weli warqad ma arkin ku soo saadeen maayarkuna nagalama hadlinoo ma oran reer hebel iyo reer hebel baan ku qoray laakiin bilxaqiiqa markaan idiin sheego reereeyahay guddoomiyahooda waa joogto haddaan idiin sheegay waa in laydinka helaa ama xaafadaha kordhiyo waa kordhin kadhaan dhibaato kuma jabna maxaa dhibaataa xadiis maaha ayad meel ku qoran maaha ama 6 ka dhiga ama 8 ka dhiga waa ka dhigi kadhaan moogtahay ama 4 xaafadood oo hadda idinkaa soo go'aamiseen haddii la yidhaahdana dee waa guddoomiyaasha kolley sidaan hore u sheegna waa wax la isku bedbedelayo xaafad reer hebel baa xaafaddaa degana reer hebel ha lagu qoro waxaan u malay idinkana idaysa idinka iman maayarkana ka iman cid kalena ka iman